السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي وإذن وذا السلامي أصحابي جمعة مبارك أيا إذن لي أصحابي كاليا maantayto waxa aan gurigayga kasoo dhex bixiyey kaalaya ila arka kaalaya ila daawada bejkaygana maxay life-na waan ku sameeyey oo life waan geliyey laakiin waxaan weligay arkay ma aha subxaan allah maxay ahayd markii horeeto horta guriga subaxa horeeto maxay qof walba oo muslim uu yaqaana يعني waxaan iska akhristaa subaxii ama uu markaa haleelo suuratul kahfi ya jimcaha iska daara waa ku daaray wabacdeen maxay ahayd suuratul baqara ayaan daaray inta aanan waxaan gacmahayga gelinin oonan gacmahayga ku taabanin gurigayga waxaa kasoo dhex baxay waa guriga aakhire midkan aan dunida maanta ka joogo waxaa kasoo dhex baxay waxaan aad la wada yaabi doontaan oo wada mucjizada ah waxaas ayaa gurigayga kasoo dhex ujeedaan ayaa gurigayga kasoo dhex baxay guri la degan yahay ee degan yahay waxaan fiiriya waxaan ku dhahay waa bacdan waa waxaasoo dhan oo u wada jeedaan waa buuga waa cajalada waa bacyaashan aa ujeedaan waa kuwan kulligoodan waxay kasoo baxeen hoolkaas ayaa laga soo saaray oo ay ka yimaadeen wax kalena way ku jiraan waxaa ku jirta tishuegan waxaa ku dhex jirtay oo ka magaciisana ka fufurnay sidaa u magaciisanay tima ruux aad iyo aad u adag oo maxay ahayd qaarkood ay maxay tahay magaciisa leeyihiin wada kuwaana halkan oo madoobaaday ay qaarkood leeyihiin subxaan allah yacni suuratul baqara ayaan ku akhriyay إن شاء الله بإذن الله الكريم وحبانا ما إيغا مركا هالكا وان كبقايا أو حتى شبقي كل جناي من نقان مدعاد ودير هورتا وان أركايي إن شبقوا مقنيا هاي لكن ما أقانا والبا وحبا إيغا جيدينايا بعيال أيا كجيرا أو كاليتا بعياشانا كسو بحيا وحان أيا ميشا كجيري mana naqaano buugaasaa kasoo baxay waxaan oo dhanaa kasoo baxay walciyaadu billaah waxaan ku dhahay guntimo badan waxyaabo badan ayaa meesha ka buuxay qof walbaba horta alxamdulilah shukra bilcaalamiin ilaahay subxaanahu watacaala ayaan ku mahadinayaa ma ihi dadka quluubta xun ama quluubtooda ay jiran tahay ama xasadka ma jecli mana ihi allana igama dhiginin waxaana qof qalbigeedu uu nadiif yahay cidnana ma xasdo cidnana ma cadwo maxay ahayd marka qof walbana adigu adoon xataa xasad ahayn ama cid walba ahayn ama awlaad haday tahay ama dhaqaale haday tahay ama karti aad leedahay ay tahay ama wax walba haday tahay ibni aadanka yani waxba kuma ogola waaratan waxaas ma taqaanaa meeshay kasoo wada baxeen wax kaleetana way ku jiraan usha haddaan galo waxba sooma saarayso laakiin halkaa hoosoo kaleeto gacantayda haddaan ku taabto way ku jiraan weli wax kaleeta ayaa ku jira marka subxaan allah waxa weeye insha allah biidni lillahi alkariim intaana hadeertan halkaasan suuratul baqara ayaan ku shidayaa ruqyada ayaan ku daari doonaa hadduu ilaahay yiraahdo waxaasoo dhan ayaa halkaa kasoo baxay ujeedaan waxaa ayaa meesha kasoo wada baxeen oo bac midan madowda waxaasa kasoo daadiyo guntimaha ku dhex jiro marka subxaan allah qaarkood muddo aad u dheer ayay maxay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabi waxaa meesha kasoo bixiyey waxaa ku jira buugan dhexdiisa markaan furay runtii ma rabo inaan public la isticmaalo sababtay tahay waxyaabo aan la yaabay ayaa ku jira waxaa kamida waxaa ku jira horta magacyadeena ayaa ku qoran waxaa ku qoran oo kaleeto nambara taleefana ayaa ku qoran ciddii ku qortay wallahu aclam weligay taleefanadaas ma aana isticmaalin mana aanan yeelanin horta muddo 18 sano ku dhowba hal nambaraan haystaa aniga waxaa kaleeto ku qoran meeshaan caruurtayda aabahood oo aan rabin public inaan magaciisa ku isticmaalo magaciisa oo saddexan meel buu ku qoran yahay for example page kan ugu horeeyo kaleeto oo halkaas iyo numberka arki kartaan halka numberka ku qoran iyo
runtii magaciisa oo isagana halkan ku qoran meeshan dhexda magaciisa kaleeta ku qoran waxa kaleeto oo buugana qof inaga naga mid ah oo gurigeena kamid ah qof walba handwritingkiisa waa yaqaana handwritingada ku qoran shuqul iyo shaqo anaga kuma lihin walaa caruur run ahaantii wax aan dhinaca kaleeto oo dhexda ahna magacayga ayaa ku qoran iyadana waxaa kaleeto buugan ku qoran allah ya raxman raxiimiin wiilkayga dhintay maxamed weli ayaa magaciisuna ku qoran yahay marka privately maxay ahaatay ma aan rabo in aan alaabtii kala dhan waan qaaday waxaan kusoo shubay waan ka codi bilaystay qashinka ayaan ku daray laakiin buugan isagana yani maxay ahaatay dad aniga iga cilmi badan oo culimada ah ayaan maxay ahaatay yani tusi doonaa waxyaabaha ku qoran iyo sida ay yihiin laakiin waa buug aan runtii maxay ahaatay aan la yaabay cajaladii xitaa waan